دفعتي لحاد يصدحاد وكقلن جبسة مؤسسة دار البر وكمذا مؤسسين كان لقبرته حفظنا القرآن الكريم كأي سيد وكله علومته شرعة أيام مانتا وحي حفلة بلا لقوقبتي مقالة أبوخ اللي أرضي دمشتي علومته شرعة يسيد وكله قرآن الكريم كا مناسبة بلا لقوقبتي مقالة أبوخ اللي وحاكا قيب قري وأرضي أسكو قلن جبسي والدين وحقرد يسيد وكله قيبها كردوان برشاد يكون رقن مقالة أبوخ اللي حرمتها قبل كعين وجهره وحالكاسي كا اللي معمولها جود مؤسسة دار البر عمر عبد إبراهيم حسن وفاين كبحي مهمة ده لقبتي حفلة ما أنت رنتي وحنوتها فرحة وين دمان كسوق قيب قلياشة أردد قلن تبينيسا مؤسسة دار البر أما حرونتهم مؤسسة دار البر قيبت هذا شريعة دكسية معد إعدادية دار البر هي قيبت علوم القرآن قرآن الكريم لما يستي رنتي بقول كي وبقول وحن شعلهاي أرديدا قلن تبينيسا إن أوهم بليانو أو قرب استاجنو أيان شعلها حارنتي نصامرتي مراحل كلا دوان حارنته وعبرشة مؤسسة دار البر مراحل كلا دوان بيصامرتي وقارنتي وحي كبر عمتي مدرسة هوسي أي كبر عمتي هذا حارنته وحي مريسا هذا حفظ القرآن كهذا تاي هذه أي تاي علوم الشريعة هي مادة هذا تاي قيبتي بردن كحارس كيسيدين هذا تاي قيبها صدق وعودة ما يسترنا إن شاء الله تعالى هذا ننسي والله إن شاء الله أردنا دفعة ما تقلنا تبينا سوى حلقة مقعابة دفعة الأنوار ودفعة دي صدحات يلي حاد سوق شرطة قرآن كا لما يستي هي علوم تشريعات علوم تشريعات ودفعة دي صدحات لما يستي معد كا دكسية هو صدح إعدادية قرآن كان لما يستي كنتي وحان شعلهاي أرضيدا aanu soo saarayno inay noqdaan siilina anfaca dhamaan dalka iyo dadkaba inoo anfaca تحية أهل الإسلام تحية أهل الخير ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم وسوره فأحسن صوره والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد صلى الله عليه وسلم ومرحبا بكم أهلا وسهلا ومرحبا بكم بأيدي مفتوحة. إسكولكا تركيا داير ولا بريمري سكندري إسكول مركان كو هادلو waxaan leenahay juhdiga ay bixiyeen maasooyinka quraanka iyo macaahidu waxaan ballan qaadaynaa anna mid la mid ah inaan bixino ana waxna ka akran dadka iyo dalka toona ka sare Imaam Nawawi العلماء الشرعية والعربية إن أنا ما أنت أرجنا وكقرب قلنا حفلة قالقة يعني كسر قلنا جميعنا يان أرضي قاعد يسا إلى عشان يتوان أرضي وصود ميجي معهد كواسع إعدادي لها دار البر ونسوا جد بيا معهد كسر إمام النووي. أنا هم بليانينا أرضي دم جروح ضبطن يركاه أولاد النية كسر قلنا شبيسي كلية ده حفلة الله قبطي وهم بليانينا وحن لنا هي هم بليو كودت كودا إيو دين تودا إيو دل كودا وحتره الله كدقو كوالله انتفاعه والد كود إيو دمان ومدى الصوماليات بقى يكون انتفاع ده الله كدقو وحبرشدا dad baa juhdi badan ku lumiyay dhaqaale badan geliyay ka shaqeeya haday yihiin macallimiin haday yihiin ururo islaamiya haday yihiin hooyooyin jiilkeena waxaan leenahay bulshada waxaa loo eegaa jiilka yaryar ee deegaanka ku nool haday jiil wanaagsan oo horumar yihiin oo dad aqoon la yihiin oo aragti fiican yihiin bulshadu way horumartaa waxaan leenahay kuwii deegaanka horumarin lahaa ilaa qoyska ilaa deegaanka ilaa dibadda dalka kale markay dalka tartamaya horumarin lahaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa idinka dhigay waa hambalyo macnaheedu hambalyo hanii'an lakum ardadan qalin jabisay waxaan leeyahay hal qodob maanta waa qalin jabiseen laakiin geedigu waa dheer yahay wax ilaahay loogu mahadiyo in sha Allah marar dambana waad qalin jabinaysaan guuleysta baan leeyahay guuleysta
guulaysta ha ka daalina oo ka gaabinina arday aad u da'yar wiil iyo gabadhba oo qurux badan baa meesha ka muuqata waa laba qalinjabin xafladdu waa qur-aanka kariimka iyo macadkii icdaadiga ahaa oo dugsi hoose dhexe ka dhigan u dhigma ay una gudbayaan dugsiga sare thanawiga waa dugsi sare waxay u gudbayaan waxay ka dhigan yihiin maadi iyo diiniba waxay dhammeeyeen dugsigii hoose dhexe waxayna u gudbayaan hadda dugsigii sare macadka macnihiisu tayadiisu waa mid caynkaas shahaadadiisuna ay muntafac tahay dugsigeedna ku fadhiisanayaan dugsiga sare dugsigan sarena oo in badan dee isagoo caan oh la yaqaano dal iyo dibadba shahaadadiisu ardadii ka baxday dugsiga imaamu nawowi oo dal iyo dibadba ay jirto kuwii ka baxay ee dibadda jaamacado u aaday baa jaamacadihii ka soo baxay dugsiga imaamu nawowi falilaahi alxamdu ilaahay baa mahad iska leh allah halkaas soo gaarsiiyey ahaysiiyey ilaahaasaa mahad leh xuseen xasan cadde telefishinka caalamiga ee Kalson TV